بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadka meel walba joogtiin caafimaad waa raalli nooga barya. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo bini'aadankeena ama dad ahaanteena markaan noolnahay waxaa la kulanaa dhibaatooyin badan. Waxaa dhacda dad badan inay marar qaarna dad badan na soo xumeeyaan, mar inay nolosha sida ay rabteen u noqon weyso, mar waxyaabo aan fahmi weyn inaan la kulanno, hadal aanan u qalmin in nala dhaho. taas يعني waxyaabahaas la dhahayo dhan inta badan hadaa bini'aadan nahay waa haysanaa. magac ahaan waxay noqonay cuqdad. يعني cuqdada boog ku abuuranta waa qofka si nafsiyan ama emotional cuqdadaas marka kaaga imaaday dhibaatooyin kuugu dhacay ama qofda wuxuu ku dhahay waxyaabihii ka hor aan soo sheegay waxay kuu sababi kartaa ama uu keeni oo la hubaa inay caqabado badan iyo cabsiyo badan ay kaa geliso nolosha. يعني nolosha bari taagan inay kaa cabsi geliso, inay ciil badan aa gudaha ku haysid oo nafis aa weysid, يعني aadan nafisi karin. waxyaabaha bini'aadanka uu rajaynayo ama hor u socoshada nolosha inay mar walbo inta badan ay kaa noqoto negative. waxay kaloo keenaysaa aaminaada dadka inay kuugu yaraato ama inaa inta badan dadka aa u aragtid in ay adiga le ku taarget gareynayaan, inay adiga ku neceb yihiin, inay wax kaa haleyn doonaan. yani wax fikiradan kale dhan oo aa ka qaadanaysid dadka ama markaas xiriir la lahaaw ama rajooyinka mustaqbalka soo socda ahaaw waxaa kaa xumeyn karo ama mar walba oo ku xanuujin karo cuqdada ama dhibaatooyinka hore aa haysatid. si aad mar kasta u hesho macluumaad ku saabsan cilmi nafsiga uguna xirnaata Dr. Idil Caawil Cilmi, fadlan page-keena follow soo dheh. mahadsanid. waa ogahay bini'aadan aan nahay, dhibta qaar waa nagu culus tahay inay luuno, laakiin haddaa isku barbar dhigtid dhibtaas cuqdada ee kuugu reebtay ama boogta qalbigaaga ku abuurantay inta wax ay ka haleyn doonto noloshaada dhan hal maalin ama nolol aayareedoo lasoo dhaafay, waxay keenaysaa in qaabka nolosha bini'aadanka caadiga oo u noolaan lahay inay hal mar kaa wareegato oo negative ay kaa wada noqoto. waxaa laga yaabaa inay kaa hor joogsato horumarka hadda taagan tahay mid ka sarreeya inaad gaari lahayd, la dhaqanka ilmaha aa la dhaqmaysa inay kaa qalado, raadinta shaqooyinka cusub, la xiriiritaanka bini'aadanka ama xataa hogaamiyada, yani wax walbo markaas kugu hareereysan haddaa macalin tahay. marka cafinta waxaa laga yaabaa cuqdada qofka aa u hayno ama nolosha aa u hayno inay noo keento inay nagu adkaato inaan wax cafino. yani qofka bini'aadanka wax caadiya la tahay mararka qaar noo dhaho cuqdoolow ah, laakiin bimacna alkalima yani markaad dhehayso cuqdadaa leeyahay ama cuqdadaa qaataa adigaa istooganaysid, adiga inay kugu soo noqonayso waay. yani boog kuugu taalo oo aadan diyaar u ahayn inay reysato mar walba asii juqaynaysid. yani haddii aa u cabiro qaab oo physical ama qaab la arki karo. marka wixii lasoo dhaafayna ama qofkii aa waxaas u qabteen waxaa laga yaabaa inuu iska faraxsan yahay, qofkii inuu nolol kale ku jiro, inuu xisaabtankaba aadan adig ugu jirin, in barbaleenba oo haysanin, laakiin adigii oo dib u dhac kuugu sameeyey. marka inaa inta meel fadhiisatid aad ka fikirtid wixii hore inaa iska saartid ama aa u fahamtid inay yihiin cashar ay nolosha ku soo siisay ama aa u fahamtid khibrad aa soo heshay oo meesheeda aa ku dhaaftid. yani maahan adigoo socoteed ama shaqooyin qabanaysid inay cuqdada kaa baabi'i karto, laakiin waa inaa ugu talagashaa, waa inaa u fadhiisataa, waa inaa adiga dhan adigoo consciouskaaga ama wacyigaaga joogo aa u sheegtaa maskaxdaada waxaas inay yihiin wax adiga gacantaada ku jirin ama inay yihiin wax cultureka oo sababay, yani dhaqan ahaan ee keentay ama waxyaabaha markaas la aaminsanaya ay sababeen ama qof kale damiir xumo oo leeyahay hadal oo ku dhahay. yani inay kulli tahay wax u baahan inaad iska tirtirtid, inaad meel fadhiisatid adigoo waacigaaga joogo, dib iskula hadashid oo hal mar aad tirtirtid. wax badan oo negative way kaa hari doonaan, nolol cusub badan oo nadiif oo positive waa heli doontaa. tijaabi. waxaan rajeynaa inaa inta aniga aa filaayo ama inta adiga hadda aa filis ka badan oo positive oo noloshaada wax badan ka bedelo inaa arki doontid.
هذا وما سنتين وهذا رجينا وحنا فهمتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.